Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalo qiimo badan. Muuqaalkeena maanta waxaa ku saabsan yahay dardaaranka hooyada habeenka aqalgalka. Hooyo ayaa la dardaarmaysa gabdhaheena. Waxaan inii soo gudbinayaa anigoo Cabdishakuur Cabdikariin ka bogsho wacan insha Allah. Hooyo 3 jeer ayay dardaarmaysaa. Lambar 1. Hooyo gabadhaydii waxaad ka baxday guri aad baratay una baxday gogol iyo nin aadan garanayn. U noqo dhulsamo ha kuu noqdee, u noqo dhab udub dhexaad ha kuu noqdee, u noqo jaariyad addoon ha kuu noqdee. Ha isku nabin yaanu ku nicine, hana ka fogaan yaanu ku hilmaamine. Hadduu kuu soo dhowaado u dhowow, hadduuse kaa meero ka fogow. Ilaali sankiisa, dhegihiisa iyo indhihiisa. Yaanu kaa urin udug mooyee, yaanu kaa maqal hadal mac mooyee, yaanuna kaa dhugan dhalaal iyo qurux mooyee. Lambar 2. Hooyo gabadhaydii waxaad ku socotaa nolol cusub. Nolol aanu boos uga bannaanayn hooyada, aabbaha iyo walaalaha toona. Waxaad noqonaysaa xaas u qabanin aan doonayn in ay cidi kula wadaagto, xitaa hadday ciddaasi ahaan lahayd kuwii ku dhalay iyo kuwii kula dhashayba. Gabadhaydii ninkaaga u noqo naag iyo hooyo labadaba. Gaarsii heer uu aamino in aanay cid aan adiga ahayn jirin. Markasta xasuusnow inuu nin kasta yahay carruur cag weyn. Hadal macaankan ugu irina inuu ka farxinayo. Yaanu kaa dareemin murugo iyo in guurka uu ku guursaday awgii aad reerkaagii uga soo fogaatay. Ilayn isaguba waxa uu ka soo tegay gurigii aabbihii iyo reerkiisii. Ha yeeshee farqiga idiin dhexeeya adiga iyo isagu waa farqiga u dhexeeya nin iyo naag. Oo naagi mar walba waa ay ka beer jilicsan tahay, kagana xiiso badan tahay ninka xagga waalidkeed iyo gurigii ay ku dhalatay, ku barbaartay, waxna ku baratay. Waa inaad la qabsataa nolosha cusub iyo ninka cusub oo laga bilaabo maanta noqday ninkaagii iyo carruurtaada aabbahood. Gabadhaydii wakaa mustaqbalkaagii, waana kaa gurigaad adiga iyo ninkaagu wada dhisateen. Aabbaha iyo hooyadana ka soo qaad wax tegay. Oran maayo iska ilow aabbaha, hooyada iyo walaalaha. Haddaad adigu ilowdana ayagaanba ku ilaabi karin. Waxaase kaa codsanayaa in aad ninkaaga jeclaatid, isu qurxisid, isagana u joogtid. Weligaana maandhay iska ilaali masayr, haddii kale furiin meel kuma jiro. Lambar 3. Hooyo gabadhaydii maal badani waalidkeed hadday gabari nin kaga maarmi lahayd adaa ugu horeyn lahaa. Balse haddaynu nahay dumar, rag baa naloo abuuray sida raggaba annaga naloogu abuuray. Gabadhaydii waddankaad ku dhalatay iyo gurigaad ku barbaartay waa tanoo waad ka baxaysaa adoo aadaya dal aanad aqoon iyo nin aadan u baran la dhaqankiisa. Maandhay u ilaali 10 mawduuc. Ta 1 iyo ta 2. Ku qanac waxa uu ku siiyo, kana maqal waxa uu ku yiraahdo. Maxaa yeelay qanaacada qalbiga ku qabooba, maqalka ninkana Rabbi baa raali ka noqda. Ta 3 iyo ta 4. Halka ishiisu qabanayso la soco, halka sankiisu urinayo ogow, oo aanay ishiisu qurux mooye wax kala qaban, sankiisu udgoon mooye wax kala urin. Ta 5 iyo ta 6. La soco waqtiyada uu wax cuno. Dadaal deganaanta waqtiga uu hurdo. Maxaa yeelay gaajadu way gubtaa, hurdada oo lagu bargooyana waa ay kaa cadhaysiinaysaa. Ta 7 iyo ta 8. U dhowr guriga iyo maalka ha ku qadariyee, una daryeel qaraabada iyo ubadka. Maamul aqoon iyo marwanimo ha kuu qiree. Ta 8 iyo ta 10. Sir ha ka bixin yaanu kaa sadgoosane, amarna ha ka diinin yaanu intuu xanaaqo ku diline. Ha farxin isaga oo murugaysan, hana ismurjin isaga oo faraxsan. Maasha Allah, cajiib dardaaranka hooyo. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Dhammaantiin mahadsanidin.